asalaamu calaykum saaxiibyaal kusoo dhowaada waa maalin kale oo axadaysan oo runtii kooxaha qaarkood madaxa u degsan sida Real Madrid, sida Atletico Madrid, sida Liverpool, sida Arsenal iyo kooxo kale oo ka qasan jabiga ayaa warkan idinku haya. Ugu horreyn saaxiibyaal waxaa idinka codsanayaa like, subscribe iyo share iyo inaad muuqaalkan meel fog aad gaarsiisaan aad iyo aad baad umahadsantihiin. Ugu horreyn kusoo dhawaada mar kale. Real Madrid ayaa galabtan madaxeeda degsan jabi aan caadi ahayn oo xitaa Mbappe foomkiisa la yaqaanay kusoo laabtay xilli uu jirsaday 26 sano jir ah. Ninkan seasonkan wuxuu ku bilowday in uu 2 koob horta meel uu dhigto waa la arkay. maanta waa cadara aan caadi ahayn, xitaa waxaad arkaysaan dabaaldega la dhahay shrug celebration, garbaha oo micnaha oo hoos loo dhigay gacnaha kor loo qaado. shrug ayaa la micnaha waxay ka dhigan tahay micnaha adigoo dhahay yaa wax naga qaban karaa camal ya magaalka anigee noo shidan tahay inaad dhahda camal ayay ka tarjumaysaa. marka sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa waxay u sameeyeen iyo kooxda kale Sevilla waxaa loo sameeyay ninkan lagu magacaabo Jesus Navas oo kooxda ka tagi rabo. xitaa waxaad arkaysaa Luka Modric oo siiyay fanaanad ku naqshadaysan micnaha ku saxiixadaysan tiimka dhan, saxiixooda ayaa fanaanadaas ku qoran. marka runtii way badiyeen dadkan, madaxood ayaa u degsan. min Valverde ayaa gool cajiib ah dhaliyay, boxka banaankiisa mid aad u malaynaysid gantaal laga soo tuuro ruushka camal leh taas ayaa idin dhina micnaha mid oo aan caadi xitaa goolkiiba xitaa ma qaban karin. marka Mbappe xitaa isagana gool cajiib badan ayuu ku tuurtay. sidoo kalena waxaana meesha ka maqnayn ciyaartooyga kale xili oo xitaa Mbappe uu micnaha uu ka farax siiyey xitaa Valverde iyo micnaha xitaa Rodrigo xitaa uu ku tuurtay. marka waxay u aheeday axadaysan Madrid ayay u aheeday. sidoo kale dhankan Liverpool, Mohamed Salah wuxuu ka noqday boqorka Liverpool ayuu ka noqday. horta waxaa la dhihi jiray boqorka Egyptian ayaa la dhihi jiray, maanta wuxuu noqday boqorka Liverpool. waa loo cimaamaday, cimaamadiisa waa lagu tuuray, cimaamadiisa ninkan ma la haysan karo. marka Mohamed Salah wuxuu dhaliyay 2 gool oo cajiib ah, xitaa wuxuu ka sara maray gool dhalinta Erling Haaland oo seasonkan xitaa ay ka taasho ayuu uu micnaha ka hor dhacay. Mohamed Salah wuxuu leeyahay 15 gool ayuu leeyahay, Erling Haaland isagana wuxuu leeyahay 13 gool. sidoo kale Mohamed Salah ayaa noqday ciyaartooyga kaliya ee bishan December-ka oo Xmas lagu magacaabo yani shaqal gaalada ah in uu micnaha 10 caawinaad iyo 10 goolal xitaa ka badan uu dhaliyay oo micnaha kooxdiisa uu ku caawiyay, oo micnaha 10 assist iyo 15 goals. marka Mohamed Salah waa xitaa wuxuu noqday xidiga markasta gool dhalinta ee ku sareysa Liverpool ayuu noqday, xili oo 4 micnaha wuxuu joogaa booska afraad ayuu joogaa. kaliya waxaa ka horeeya 3 ciyaaryahan oo hore u soo ciyaar jireen Liverpool oo micnaha booskaas ku wada jooga. wuxuu noqday ninka ugu goolasha badan ee numberka afraad fadhiya Liverpool markii la dhaho. marka Tottenham iyo Liverpool waxay wada ciyaar doonaan 3 kulan. kulankii hadda ugu horeyso way wada ciyaareen 6 ayaa lagu dhuftay iyo 3, xili Mohamed Salah uu noqday
abadan ninka ugu caawinaada badan xilligan December oo xitaa 15 gool oo haysto. Marka Liverpool caafimaad taam ayaa haysataa, xitaa Mohamed Salah hadduu joogin Jota ayaa adeeganayo, Gravenberch ninka ayaa adeeganayo, marka Mohamed Salah waxa weeye howshiisa meel ayuu u tiiriyey Liverpool. Marka Liverpool xagaagan koobabkan iyada ayaa leh, mid waa kana oo xitaa waxay fadhidaa weliba waxa u harsan hal gacan oo game ayaa u harsan oo game ku harsan oo game ilhaan ayaa u harsan oo Premier League xitaa Tottenham maanta 6 ay ku dhufteenna way wada ciyaar doonaan League Cup oo Carabao Cup ayay ku ciyaari doonaan. Liverpool oo hal game u harsan ayaa haysataa 39 dhibcood, xilli Chelsea maanta 0-0 ever gashay 35 dhibcood ay haysataa, xilli Arsenal ay kusoo xigtana nambarka booska saddexaad waxay haysataa 33 dhibcood ayay haysataa. Nottingham Forest ayaa number 4 fadhida, waa cajiib, waxay haysataa iyadana 34. Manchester United iyo Manchester City iyo Tottenham ayaa booskan laga rabay. Waxaad ku arkaysaa waxa weeyaan Nottingham Forest, Aston Villa, Bournemouth ayaad ku arkaysaa. Marka Liverpool waxa weeyaan waa kooxda hadda dhisan oo kana awood badan kooxaha kale ka soo hartay 19. Liverpool way qaadi kartaa haddii ay koobkan qaadan, waxa weeyaan record cusub oo taariikh cusub ay qorayaan oo ka dhigan in Manchester United ay ka sara mari doonaan xagga koobab qaadida ee Premier League. Marka Liverpool waad u jeedaan way dhisan tahay, xilli xitaa waxaa shaki laga qabay in Mohamed Salah, Trent Arnold iyo Van Dijk ay ka tagi doonaan. dhan kalena Manchester United ayaa gabi ahaan fadeexad aad u xun kala kulantay FC Bournemouth. runtii FC Bournemouth waxay soo garaacday Arsenal, kooxaha weynka ay soo garaacday. Manchester City ayay ku garaacday 2-1 ay ku garaacday. Tottenham 1 ayay ku garaacday. Manchester United oo gurigeeda joogta iyadana waxaa lagu garaacay 3 goolal oo xitaa Ruben Amorim macalinka Manchester United madaxa xoqitaan xitaa in uu kursiga fadhiisto waa uu diiday. waxaa dhici kartay in uu gadaal u dhaco, madax xanuun, stress, xitaa tinta inay ka biibto ama tinta inay cadaato. waxyar ayaa uga harsan macalinka. Ruben Amorim wuxuu isku dayayaa shaxda macquulka tahay Manchester United in uu u dago, uu keeno ayuu isku dayayaa. mar Lena Yoro oo keedka u fadhiisiyo oo magaciisa Maguire uu keeno, mar Evans uu keeno, uu fadhiisiyo Martinez, mar De Ligt. horta ninkaas waa isga galab low waay oo xitaa waa dhaawaclay cisbitaalay weeyaan. marka kooxda ma ciyaareynin. ninkan lagu magacaabo Rashford isagana waxa weeyaan wuxuu ku maqan yahay ganaaxa uu saaray macalinka ayuu ku maqan yahay. dhan kale Manuel Ugarte fit kuma ahan booskan, sidoo kale Casemiro ayaa isagana ka maqan. ninkan lagu magacaabo Rashford ayaa ciyaartii saddexaad uu ka maqan yahay tiimka. xilli Gary Neville uu sheegay macalinka anaa garanay uu dhahay sababta ninkan ciyaartan oo FC Bournemouth lagu soo daray, oo FC Bournemouth uu ciyaar waaye oo lagu soo darin, oo xitaa keedka xitaa uusan fadhinin, waa garanaya ayuu dhahay. wuxuu dhahay 4 macalin oo soo martay Manchester United kuwa ugu dambeeyay ayaa micnaha ku gacan seereen ama
way fahmi kari waayeen meesha iyaga laga heystaa. Waa sababta hadda Ruben Amorim uu u fahmayo in micnaha ninkan gabi ahaanba xitaa la iska diro oo la iska gado, ayuu sheegay Gary Neville. Wuxuu dhahay Gary Neville macallimiintii hore waxay micnaha ay fahmi waayeen ciyaartooydooda in ay canaantaan. Xitaa waad aragteen Ten Hag wuxuu sameeyey Jadon Sancho, isaga dhan kooxda laga saaray, marka dambe loan ayaa loogu diray Chelsea. Sidoo kale ninkanitana sidoo kale waxaa jirtay ciyaartooyo kale sida xitaa ninka ku gacan seeray micnaha Cristiano Ronaldo. Marka ninkanna wadadaas camal ayay la marsiinaa. Marka wuxuu dhahay dhaqanka soo jireenka ee Manchester United u yaalo waxa weeyaan in ciyaartooyda la iska canaanta. Maanta fadeexad ayay la dul fadhiyaan. Uu dhahay fadeexad ayay la dul fadhiyaan koox ka imaatay Serie B 2 sano ka hor in ay fadhiisato booska adiga loogu talagalay booska 4. Marka Manchester United ceeb weyn ayay la dul fadhidaa, waana 3 ayaana loo garaacay. Marka Manchester United weli ma caafimaadin. Manchester City way iska garaaceen ahaan, xitaa hadday u turi lahayd way fiicnaan lahayd oo dariskood ayay yihiin Manchester City iyadaaba loo yaabaa xitaa in ay ka daba tagto Manchester United xili ay Manchester City ka muuqata isku dhaxyaac fara badan iyo cabsi kasoo food saaratay xagga ganaaxa in loo diri doono heerka hoose tan ugu xun. Dhanka kalena haddaan eegno Barcelona iyo Atletico Madrid xalay waxay sameeyeen. Atletico Madrid laga soo bilaabo 2002 macalinkan wuu toosiyey run ahaantii Diego Simon laga soo bilaabo 2011 xilli uu qabtay wuxuu tiimku keenay number 2 number 3 micnaha booska 3aad booska 1aad xitaa mar Champions League final 2 mar uu keenay. Marka macalinkan wuu toosiyey run ahaan. Marka Barcelona iyadana Lamine Yamal haduusan uu micnaha 11 ciyaartooyda lagu soo bilaabo haduusan lagu bilaabo waxa Barcelona qalaas ninkaas kali ayay ku tiirsan yihiin. Marka Barcelona iyadoo ku haysay 5 dhibcood misna hadda waxay u jirtaa 2 dhibcood xili Real Madrid oo hal game ay u harsan tahay. dhanka kalena Tottenham macalinkeeda madaxa uu gacmaha saartay macnaha waxa weeyaan isku dhaxyaac buu kala kulmay Liverpool xili 2 game ay u sii harsan tahay. Marka wuxuu leeyahay tan kama baxsan karna camal yaa naga fujiya ayuu taagan yahay. Ruud van Nistelrooy isagana Leicester City aad iyo aad ay ugu dhiban yahay xili 3-0 ee gurigood lagu garaacay. dhanka kalena ninkan Mason Greenwood aad iyo aad ay u shaqeynaya way u shidan tahay magaalkiisa xili Manchester United-na ay iska soo dirtay xili ay u baahi qabto ninkan camal. dhanka kalena Arsenal haddaan ku qatimno waxay Arsenal u egtahay iyadana mid tartamaysa ay u egtahay way tartami kartaa xitaa abaartii koob la'aantii way sameyn kartaa inay dib u qaadato xili 20 sano iyo 21 sano laga joogo koob la'aanta Premier League ka haysato. Marka 3 waxyaabood ayay u baahan yihiin Arsenal inay ku guuleystaan. Arsenal waxaa ka dhaawacmay horta Messi-gooda ee Saka ayaa ka dhaawacmay. waxay u baahan tahay nin Saka kale camal markii Saka sida camal u dhaawacmo booskiisa bedel kara iyo nin kale markii la soo geliya horeba goolka dhalin kara ay u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay xoogoo kale lagu jacburiyo dhaxda iyo waxay u baahan tahay daafacyada in isku jacbureen ay u baahan tahay iyo number 9 hadduu number 9 kan dhaawacmo mid kalena oo micnaha booska buuxin karo sida hat-trick uu u dhaliyay Jesus markuu ka soo noqday dhaawaca.
saaxiibayaal intaas ayay noogu eg tahay. Waxaa idinka codsanaynaa subscribe, like iyo share inaa muuqaalka meel dheerna noo gaarsiisaan.